daawadayaal ku soo dhawaada laacib sports oo hadiya goor idiin soo gudbisa barnaamijyada aynu kaga hadalno kubadda cagta. daawadayaal barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa ciyaartii la yaabka lahayd ee dhex martay dalkaasi Croatia iyo dalka Argentina. dalka Croatia waxaa hogaaminaya oo kabtan u ahaa Luka Modric oo ah ciyaartoy u dhashay dalkaasi Croatia kana ciyaara naadiga Real Madrid. dalka Argentina waxaa leylinaya oo hogaanka u hayay kabtan Lionel Messi oo ciyaara naadiga Barcelona ee dalkaasi Spain. haddaba ciyaartan ayaa waxaa la saadaalinayaa in xulka kubadda cagta ee dalkaasi Argentina maadaama ciyaartoodii koowaad ee furitaanka ee gruubka ay ku jireen ay hal dhibic la galeen oo ay ka qaateen dalka Iceland. natiijo fiican ayaa laga filayay in xulka kubadda cagta ee dalkaasi Argentina iyo kabtan Lionel Messi inay ka gaari doonaan xulka kubadda cagta ee dalkaasi Croatia ugu yaraan haddii aan waxba aysan ka qaadin xitaa dhibic ayay ka qaadan lahaayeen si ay ugu xisaabtamaan ciyaarta ay la leeyihiin dalka Nigeria oo ciyaarta ugu dambeysa ee group stage-ka. haddaba Croatia hore u soo badiyay oo Nigeria kaga soo badiyay 2-0 ayaa waxaa la filayay in ciyaarta caawa ay soo bandhigeen mid ka duwan ay la imaan doonaan oo ayna difaac ka geli doonaan dalka Argentina. ha yeeshee ciyaarta qaybta hore waxay ku dhamaatay eber gelinka dambe ee la isku soo noqday ayaa waxaa ka dhacday fadeexadii ugu darneyd ee kubadda cagta adig soo marta. haddaba daawadayaal ciyaartan waxay ahayd ciyaar la wada fiirinayay oo ay indhaha caalamka wada eegayeen laacibka Lionel Messi oo ah laacib markasta ay xifaaltamaan laacibka Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu leeyahay 4 gool 3 uu ka dhaliyay dalkaasi Spain iyo 1 eberka dalkaasi Morocco. ha yeeshee Cristiano Ronaldo waxaa la sheegay oo ay saxaafaddu qortay in aysan 4 daqiiqo ka badan ku qaadan in uu ciyaarta koowaad ee uu dalkaasi Spain la ciyaaray uu gool kaga dhaliyo goolkii halka dalka Morocco uu 4 daqiiqo oo qura markay ciyaarta socotay uu gool ku lahaa halkii ay kaastan kaga adkaadeen oo ay 4 gool leeyihiin ay filayaan inay soo bixi doonaan wareegga 10. ha yeeshee qeyb ayay ku jiraan xulka kubadda cagta ee dalkaasi Argentina maadaama ciyaartii labaad laga badiyo waxa uu hartayna waa hal ciyaar oo dalka Nigeria ay la ciyaari doonaan. Nigeria natiijo wanaagsan ayay filaysaa maadaama ay ogaatay natiijada ciyaarta ay ku soo dhammaatay dalka Croatia iyo Argentina. waxa ayna rajaynayaan inay maanta u qood sheegtaan dalkaasi Iceland si ay ciyaarta kama dambaysta ay la leeyihiin dalka Argentina ay difaac ugu galaan counter attack-na ugu qaadaan oo ay bannaanka uga saaraan xulka kubadda cagta ee Argentina iyo kabtan Lionel Messi. ha yeeshee waxaa la sheegay dalkaasi Nigeria ay maanta ciyaarta Iceland ay leeyihiin ay natiijo fiican ka rabaan. haddaba ciyaartan ayaa 3-0 waxaa loogu awood sheegtay xulka kubadda cagta ee dalkaasi Argentina. ciyaartoyda reer Croatia ayaa iyagoo faraxsan oo dabaaldegaya ka baxay garoonka waxaana meesha ka tegay Lionel Messi oo aad u murugaysan oo la yaaban natiijada ku dhacday xulka kubadda cagta ee dalkaasi Argentina. laacibkan ayaa waxaa la filayay in natiijo fiican uu kala soo noqon doono World Cup 2018 maadaama kii 2014 dalkaasi Brazil lagu qabtay uu dalka Argentina ku guul daraystay oo dalkaasi Jarmalka ayaa 1-0 kaga adkaaday waxaana waqti dheer lagu daray gool ka dhaliyay laacibka Mario Götze ee dalkaasi Jarmalka u dhashay. haddaba daawadayaal waxaa la filaabo waxay noqon doontaa laacibka Lionel Messi iyo xulka kubadda cagta ee dalkaasi Argentina natiijada ciyaarta kama dambaysta ee dalka Nigeria ay la leeyihiin ay ka soo hooyaan. waxaa la filayaa in Lionel Messi uu kor isu qaadi doono laacibka Diego Armando Maradona oo ah legend ama cabqari hore ama xidig hore reer Argentina oo aad u muraad dilacsan ayaa garoonka lagu arkayay isaga oo niyad ka qaaday ciyaartii maanta dalkaasi Argentina 3-0 looga adkaaday. daawadayaal intaas ayaan barnaamijkii ku soo gabagabaynaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.